munaasabadan casho sharafta ahayd oo ay soo agaasimeen maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa loo sameeyay dhalinyaradii ka soo qayb galay shirweynihii qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed kaas oo muddo 3 maalin ah ka socday gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana ka soo qayb galay munaasabada casho sharafta dhalinyaro ka kala socotay maamulka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada dalka ka jira xildhibaano wasiirada dhalinyarada maamul goboleedyada dalka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale oo gobolka Banaadir ka tirsan ugu horeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo ka hadlay munaasabada casho sharafta ayaa soo dhaweeyay dhammaan mas'uuliyiinta iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay sharaf weyn ay noo tahay inaan caawad ku soo dhaweeyno aqalka dawladda hoose ee Muqdisho annagoo ay noo tahay habeen taariikhiya marka aan leenahay casho sharaf macnaheedu uu noo koobay waxaan halkan ku sameeynaa munaasabada kala duwan oo kuwa ugu qiimaha badnaa ay ku jiraan laakiin caawa waxay iga duwan tahay waan u niri casho sharaf waxa caawa halkan isugu yimid Soomaaliya oo dhan dhalinyaro oo dhan iyo dhiigga cusub oo dhan mudane Mustafa Sheekh Dhuxulow ex wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska haddana mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu casuumay munaasabada casho sharafta ahayd ayaa ka hadlay shaqo la'aanta haysata dhalinyarada wuxuuna maamulka gobolka Banaadir ku dhiirigeliyay isku xirka dhalinyarada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulkiisa runtii waxaan ku dhiirigelinaa sidii ay u qabteen gobolka kaalinta muuqata ee ka geysteen horumarinta dhalinyarada iyo waliba dhalinyarada baahida gaarka qaba sida ay uga warqabeen aad iyo aad aan u dhiirigelinaa iyo waliba isku xirka iyo wada shaqaynta gobolka kala dhaxeeya dhalinyarada Soomaaliyeed meel bay ku sugan yihiin markasta oo dhalinyarada la soo qaado waxa la soo qaadaa runtii wax la xiriira shaqo la'aanta runtii waxa keenaysa culays ka jira dalka oo ay kamid tahay dawladda oo aan awoodin inay canshuuro ka qaado dalka dhan taasna waxay keenayaan miisaaniyad gaar ah loo sameeyo dhalinyarada laakiin insha Allah taala waxaan gaari doonaa waqti dhalinyarada wax walba u baahan yihiin loo sameeyo karo ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Soomaaliya maama Khadiija Maxamed Diiriye oo munaasabada ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in ay soo dhameystireen siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha noo qabsoomi kara ka wasaarad ahaan waxaana ka mid ahaa siyaasadda qaran ee dhalinyarada inaan dejinno iyo siyaasadda qaran ee isboortiga waxaa caawa ku faraxsanahay mudane gudoomiye siyaasaddii qaran ee dhalinyarada aan soo dhameystirnay Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ee Muqdisho Somali Cable TV